ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داعي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات xafladani lagu weyneynayo dhalashada nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatay ayaa waxay ka dhacday magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika. Xuska dhalashada xabiibkeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatay ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan bulshada Soomaaliyeed ee degan magaalada Johannesburg. Xafladda lagu weyneynayo dhalashada nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatay ku bilaabatay socdaal dheer oo lagu soo dhexmaray wadooyinka dhexmara xaafadda ay Soomaalidu ka degan tahay magaalada Johannesburg ee Mever, waxaana kadib la iskugu tagay garoonka kubadda cagta ee Mever Stadium iyadoo kadib masjid weyn lagu soo gabagabeeyay xafladii lagu weyneenayay dhalashada suubanaheena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. waxaana sanadkani ka soo qayb galay xafladda lagu weyneenayo dhalashada nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee culimo waaweyn oo kala yimid wadamada Mareykanka iyo Sweden, kuwaasi oo kala ah Sheikh Saalax Macalin iyo Sheikh Maxamuud Gurceel, waxaana ka soo jeediyeen xafladda muxaadarooyin ku qotoma taariikhda suubanaheena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. waxay ummadda islaamka ah فرحات سمايان واحتفال إيه حفلات كلا دول وسمايان دلشاد النبي صلى الله عليه وسلم طلبات ومحبة إيه جعل أنا جعلنا هاي رسول كأنه حبيب كأنه صلى الله عليه وسلم marka qofku uu jecel yahay uu adeecaya uu weyneynaya taasa maanta laga doonayo ummadda islaamka waxa halkaan isugu kaana keenay oo inta maaragtay meelo dheer iyo meelo dhow baan uga nimid انت حفلة سميسي انت سو معلومات مدة انت اللي يوم شقينيين حكى لما هو جعل النبي صلى الله عليه وسلم وتحظيم كالنبي عالم كإسلام يملك سو مسلمين ثم انت جوان دول الإسلام اسكبنا دول كغير المسلمين ومدى المسلمين تاكد احنا ملك سو ما انت مسلمين تجوان سيد الله فرحيو احتفال كالله سمينيو وركزا وارد اجماعه واجماع nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa bad oo kaleeto si walba haddii looga sheekeeyana nabi Muhammad calayhi salaatu wasalaam mar walba waan u sii baahannahay in looga sheekeeyo. waxaan iskugu nimid qof walba waa og yahay waa nabigeena inaan tacdiimino sallallahu calayhi wasallam, waa nabigeena jacaylkiisa inaan dhegaysano. waxaana sidoo kale halkaasi laga soo jeediyay xafladda lagu weyneenayo dhalashada nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee saliyo ama qasiidooyin nabi amaan ahi. محمد تمت النعمة علينا بمولدك المكرم يا محمد محمد تنويا قد كنت حقا بما كتب رحمتك يا محمد. مشايخي ومضي نسود وصوت أفريقيا كرمضان قيبنا هذا النلابيين قيبنا هذا كسر قيب قلمي إلهي خير بدنا السيو ومضى شعبك ووضع كان جوتك ومسلمين كان إلهي أقوى أنفعه أنا قال الله أقوى أنفعه أدبا نقول فرصنا هاي كرمضان. waxaana sidoo kale xalfadaha noocaani oo kale ay ka dhici doonaan 9 gobol oo ka kooban yahay dalkani Koonfur Afrika, iyadoo magaalooyinka waaweyn ay Soomaalidu degan tahay laga dhigi doono xalfadda lagu weyneenayo dhalashada nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. Idris Sheikh Ahmed Guure, telefishinka caalamiga ee Kalsan, dalka Koonfur Afrika.